أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال رمضان كريم waxaad eegi doontaan salaanta islaamka xaqa kadib mahadoo dhan Allahin weyne subxaanahu wa ta'aala ku rahaya yaa iskale walaalayaal ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeenaya gumaysiga ku hoos jirta waxay soo martay marxalado aad u kala duwan oo fara badan oo aan dhihi karo marxalad cabsi ah mid xanuun badan mid xasuuq iyo geeri yani cadaadis adduun way soo dhammaysatay weli gumaysiga maynay ka xoroobin marka ummaddaasi xalkeeda waaray waa inay ka xorowdaa weeyaan inay ka xorowdana waa inay yeelataa xornimo doonkeeduna waa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya marka muhiimaddu waxay tahay xalkaa waare ummadda waa xorriyad waan ku soo celcelinayaa inay ka xorowdana xornimo doon baa loo baahan yahay xornimo doonkaasina waa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya kii eega ugu dambeeyay walaalayaal waxaan rabaa inaan halkan ka soo ifiyo dadku ummaddu waxbay garanaysaa ummaddu mar hadday wax garanayso dad fara badan oo wax garanaya ayaa ku dhex jira ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen markaan leeyahay waxbaa la garanayaa waxaan u baahanahay haddaad aragti xornimo doon aad qaadato ood mabaadi'dii gobonnimo doon qaadatay oo aad urur gobonnimo doon ka mid noqotay waxa weeyaan adiga ma aha khasab inaad adoo nool ka qayb qaadatid inay ummaddii aad xorriyadda u raadinaysid ay xorowdo ma aha khasab waxaa laga yaabaa inaad adoo broseska xorriyadda iyo waqtiga xorriyadda ku jira inaad geeriyootid oo dhimatid baa dhici karta taadu dhammaato waxaa dhici karta inaad ka howlgabtid oo ku curyaantid sida jirta in badan oo sidaas ah waxaa dhici karta inaabad ka qanacdidba oo hadda kuwa fara badan oo ani saaxiibadeedii halkan ka mid ahaa ay maanta uga qanceen oo ay leeyihiin waxaan nahay xisbi ka mid ah gumaysigii Ethiopia isma qabanaysa marka gobonnimo doon baan ahay iyo xisbi Ethiopian ka mid noqonaya labadaas isma qabanayso waan hormarsanayaa marka walaalayaal waxaa jirta aan soo qaadanayaa waxbaa la garanayaa markaan leeyahay walaalayaal in wax la garanayaan idin sheegayaa qofka markii uu gobonnimo doon yahay markii aragtidii ku cuslaato oo maskixiyan uu noqdo mid aragti gaaban yuusan ummadda u muujinin inuu isagu saxsan yahay tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa waxaa jira xubno gobonnimo doon ahaa oo loo hanweynaa oo ummadda u soo halgamay oo naftiisii iyo maalkiisii iyo wakhtigiisii soo huray oo reerahoodii la mawraduugay oo maanta wax u soo hadhay naf cid la dhashay aysan jirin balse loo arkay inuu yahay laxajeclaawihii kuwa ugu labeenta sanaa halganka inuu yahay loo arko balse waxaa dhici karta inay aragtidiisii iska dhaadhiciyay inuu khasaarsan yahay dadkiisiina ay ka dhinteen maantana uu faramaran yahay meel cillaa uu taagan yahay laakiin aragtidiisa marka waxay noqonaysaa mid gaaban markii uu gumaysiga hay-ad ama xubin ka mid ah uu noqdo ayaa wuxuu noqonayaa nin aragtidiisii gaabatay oo hanji loo hayay iyo taageeradii loo hayay lagala noqdo walaalayaal waxaan ka wadaa codkan waxaan soo qaadanayaa habka gumaystuhu oo la dhaqmo xubnaha gobonnimo doonka walaalayaal dhowr tusaalaan soo qaadanayaa anoo halkan ka magacaabaynin xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya ka mid ahaa
balse maanta aan la dhihi karin waa xubnihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ahaa ayaa sanadii 2018 wixii ka dambeeyey gumaysiga madooba Itoobiya ugu dambeyntii wuxuu aasaasay unug uu yidhi waan aqoonsanahay oo waxaa la yidhahdaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waana xisbi siyaasi ah oo Itoobiya ka mid ah wuxuuna u carari doonaa u tartamayaa tartanka doorashooyinka Itoobiya waana xisbi Itoobiya ka mid ah marka xubnaha fara badan oo labayn ahayd oo halganka ka mid ahaa oo hogaamintii ururka ka mid ahaa ayaa waxay soo gudbinayaan oo ku qodbeynayaan inay doorasho dhici doonto oo iyagoo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ka mid ah inay u ololeyn doonaan doorashooyinka meeshaan ay dadku u muujinayaan oo dhahaan intooda badan markay qodbeynayaan nin dibad jira oo qurba jooga oo meelaha ku cararay kama hadli karo masiirka ummadda maanta gudaha joogta intooda badan saasay u hadlaan walaalayaal aan isweydiinna marka qaybo ka mid ahaa saacadihii ugu dambeysay ee TPLF EPRDF gumaysiga madooba Itoobiya saacadihii nidaamkii EPRDF gumaysigu waa isku mid weeye laakiin markii ay iyaga dhexdooda isbeddelka samaynayeen nidaamkan BB uu soo baxayo ee hogaamiyaha Abiy ee korneelka sirdoonka ah loo sameeyay biladaha caalamiga ee Itoobiya la rabay in gacanta loo geliyo si ay reer galbeedku u barankantalaan xilligaas ayaa waxaan soo qaadanaynaa sirdoonka Itoobiya ee heer federaal iyo heer kilil heerka kilil waxa uu hoos imanayay in ilay heerka federaalkana Abiy Ahmed macnaheedu Malasa Zeenaawi iyo TPLF uu hoos imanayay sirdoonkaasi wuxuu culays ku hayay xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaan soo qaadanayaa marka laba xubnood oo maanta kuwan labeenta ahaa ee loogu laxjeclo badnaa ee maanta u ololeynaya ee soo gudbinaya ayaan rabaa ma rabo inaan magacyahooda meeshan aanu ka xuso sababtoo ah ma doonayo inay noqoto aragtideedu mid hooseysa oo inaan shakhsi ku mashquulsanahay loo arko laakiin waxaan soo qaadanayaa labada xubnood mid wuxuu ahaa xubnihii loogu laxjeclo badnaa ee qurbaha joogay ee hoggaanka jabhadda ugu firfircoonaa ee xiriirka tooska alla lahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxaa jirta marka dhaqdhaqaaqa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee gudaha ka waday ayaa xadka Kenya ayaa waxaa lagu soo qabtay xubin muhiim ahaa markii la soo qabtay xubinkaas anigu waxaan joogay ku noolaa Nairobi Kenya anu aragtidayda hooyooyinkii iyo xubnihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya u dhaqdhaqaaqayay xubinkaas la xidhay aragti waxaan qabay wax la yiraahdo nin gobonnimo doona oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ka mid ahaa oo markuu dibadaha joogay shirarka u qabanayay ee xiriirkiisii golihii dhexe u ahaa ee mas'uuliyadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya inuu cadaysto ururnimadiisa meesha ayada ana beesha caalamka Human Rights Watch Amnesty International beesha caalamka uu sidaa ugu muujisto oo noqoto maadaama la xidhay uu noqdo meesha ayada ana uu aqoonsi caalaminnimo ummadda u soo hoyiyo oo halganku waa labo aqoonsi caalaminnimo iyo ku halganka qoriga ay ahayd meesha ayada ah xubinkaasi uu dafiray inuu xubin gobonnimo doon ahaa wuxuu sheegtay inuu ganacsato ahaa meesha ayada ah waxaa jiray afarta xidid ee gumaysiga waraabiyeen horay u sheegnay oo ahaa xiriirkii saxar xiriirkii balaq hoolaan xiriirkii nacaan sabab lahayn iyo xiriirka tayaxumada ahaa mid ka mid ahaa uu soo gelayaa tayaxumadaasi heerka bisaylka jabhaddu waxayna gaarsiisay inuu xubinkii golaha dhexe ahaa ee gumaysiga madooba Itoobiya gacanta ku dhigay inuu diido inuu ururkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya meesha ayada waxaa ka bilaabanaysa marka hooseynta uu hooseeyo kadibna gumaysigu muddo u xidhnaa Itoobiya lagu xidhay markii la xidhayna nidaamkan cusub ayaa soo daayay wuxuu noqday kay meesha ayada markii la miisaamay aragtidiisii iyo heerku marayay sidaas awgeed isagana wuxuu ka qancay oo xogaal ka ahaa in jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay hoos u dhacday dhaqdhaqaaq gobonnimo doon oo ciidan oo sii socon karaan inuusan jirin meesha ayada wuxuu noqday xubin lagu xisaabtamo gumaysiga madooba Itoobiya meesha ayada waxaan dhihi karaa diidmada hore ee uu diiday inuu ururkii ahaa waxay noqonaysaa
tayo hoosayn xilliga ayada anu aragtida waxaan qabay inuu cadaysto xubinkaasi xubinnimadiisii maadaama uu golo dhexe oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ka ahaa sidaa awgeedna waxay ahayd inaad xorowdid in lagu xidho inaad halganka sidiisa ugu jirtid wax afreeya wax shanaya midna ma jirto haddaan intaa ka gudbo natiijadii nooca ahayd aragtida hoosaysay waa xubnaha maanta uu ku xisaabtamahayo wakiilada gumaysigu maanta waana labeyntii ummadda loo arkayay xilligan xaadirka inaan ka hadlana waxaan rabaa inaan ummadda saa ugu soo bandhigo waxaa jira marka arrinta kale waxaa jira isaguna xubin gobonnimo doon ahaa oo ciidanka ahaa oo tayo sarreysay oo aad ka wada dharagsantihiin oo caan ahayd oo gumaysiga madooba Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya oo aad daciif u ahayd laga soo dhiibay Muqdisho diyaarad la soo saaray isagoo indhaha ka duuban Itoobiya soo xidhay markay soo xidhayna muddo u xidhnaa sida awgeed nidaamka Abiy Ahmed uu sii daayay EPRDF meesha waxa la dhihi karaa marka xubinkaasi waxa laga yaabaa nafta bini'aadamkiihi waxa la ogaaday inay isaga nafta bini'aadamkii inay ay jeceshahay inay noolaato waxa la yiri haddii ilmahaaga iyo adigu aad bad gashaan oo biyo idan harqiyaan waxaad dooni inaad adu noolaat meesha ayada waxa la ogaaday naf waliba inay iyada isku jeceshahay maadaama marka la xiray xuquuqaal uu ka ahaa inta badan wuxuu galay marka gacan diblomaasi ah waxaan xuquuqaal ka nahay in loo adeegsaday wadamo kale oo shisheeya oo haddaan ka soo qaado dariska sida hadda Djibouti oo kale sire xuquuqaal abaynu ka haynaa oo xiriir Abiy Ahmed uu aaminsan yahay shidaalka ogaadeenaya in la soo saaro kadibna laga dhoofsaday Djibouti inkastoo hadda xaaladii globaalka ee siyaasadda adduunka isbedelay aragtida noocaas uu qabay waxa laga yaabaa marka inay xubinkaasina uu xabsiga markuu galay ay noqotay in culays lagu saaro shuruudna lala galay iyadana way dhici kartaa sida awgeed waxaan dhihi karaa xilligan xaadirka isaguna intiisa badan marar uu qudbeynayo waxaan maqlahay isagoo leh nin qurba joogo dibadaha jooga kama hadli kara qadiyada Soomaalida ogaadeen iyo Soomaali galbeed sida awgeed isagana waxaan dareensiinaynaa inayna jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayna noqonaynin xisbi kamida Itoobiya sidaasna lagu xoreynayo isla mar ahaanta haddii uu aragti gobonnimo doonnimo ka qancay waxay u aami lahayd isagoo halganka ka aamusa maadaama aragtidiisu ku soo ururtay inay la isticmaalayo sida awgeed intay goor tahay xubinkaasna waxaan ku baraarujin lahaa inuu ka fiirsado waxyaabaha uu ku jiro walaalayaal waxaan soo qaadanaynaa labada xubnood waa kuwii la xiray waxaa jiray xubno golo dhaxyaal ahaa oo Nairobi laga xidhay oo laga soo raafay waxa isweydiin leh laba xubnood oo golo dhaxa ah oo mas'uuliyiinta jabhadda ahaa oo activistayaal ah oo dhaqdhaqaaq ka wada gudaha Kenya ayaa midna xiriyaha qaxootiga loogu dagaa rasaas madaxa laga dhufanay kuwa kalena intii la afduubo la soo gumaysigu soo afduubo ayaa haddana gumaysigu dib u soo celinayay abala su'aal isweydiin marka xubno mas'uuliyiin sare ahaa oo golaha dhaxa ahaa ayaa inta magaalada Nairobi dhexdooda laga afduubto ayaa haddana gumaysigu soo celinayay halkaas su'aal baa ku jiraysa marka maxaad moodaa waxa ay soo qortay xubnihii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee muddada halganka soo waday ee ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya marka aragtidoodii ka gaabatay waxay aaminsan yihiin inay halgan dambe oo hubaysan ummadda Soomaali galbeed ay noqonin sida awgeed waxay ka dhex arkeen dhammaantood kuwaas waxaan dhihi karaa danahooda gaarka ka dhex arkeen waxay noqon doonaan xildhibaano waxay ku riyoodeen marka dreama inuu gumaysiga madooba Itoobiya siin doono mushaaro kadibna ay sidaas halgan dambe oo hubaysan uusan jiri doonin fikir ah ayaa maanta xisbi loo ololeeyo noqday walaalayaal waxaa jirta haddaan tusaale soo qaadno 92 aniga oo ahaa gudoomiyaha arrimaha nabadgelyada gobolka Qorraxay ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxaan siinaya adeeg waxaan imid magaalada la yiraahdo Harar oo xilliga iyada ah EPRDF TPLF ay weeraraysa xafiisyada Islamic IFLO la yiraahdo OLF
oo hubaysnaa xilliga ayada ah maadaama aan xubin jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya shacabkii aan u adeegayna ee gaadiidkooda aan gumaysiga madoobe Itoobiya TPLF uga soo qaadayna ayaa xidhay markii ay xidheen runtii qisadaas waa qiso dheer xabsiga waxay u soo booqday ICRC Amnesty International Human Rights Watch waxa ii yimid marka xubin ka mid ahaa ciidankii TPLF markii hore jabhad baan xilligan laakiin way ciidan moobeen sargaalkii ii yimid wuxuu ii sheegay inaan sheeganin xubinnimadayda oo nalaf oo isii deyn doono kadibna waxaan ogaaday sheegitaanka xubinnimadayda aan sheeganayo inay faa'iido badan u leedahay qadiyadda si caalamnimo ah waxa ii yimid marka Amnesty International Human Rights Watch ICRC meesha ayada ah waxay igu yeesheen waraysi waxaan sheegtay xubinnimadayda inaan ahaa xubin jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya aqoonsigiina wuu shaqeeyay ilaa ay eejana waddanka Australia waxaan ku joogaa xubin oo nalaf meesha waxaan rabaa marka inaan u sheego kuwa ku naalooda ee marar badan yiraahda nin qurba jooga dibadaha iska jooga muxuu ummadan hadda aan anagu dhex joognay gudaha uu ka sheegi karaa walaalayaal laga soo bilaabo sanadii 2018 dhammaan kuwii galay shahaadooyinka marra burtukaan ka qaaday marra eega BB shahaadada siinaysa ee waanu sharaxana dhammaantood waa il duufeen halgankiina way mashara habaabiyeen toobadu maadaama ay furantahay waa inay ka soo noqdaan waxaan kula talinayaa marka kuwa aragtidoodu gaabatay ee golaha dhexe ahaa ee ciidanka ahaa ee aan arrimaha noocaas ka hadlay aan intooda badan xabsiga kuwa ugu muhiimsanaa ah aan ka hadlay hal arrin baa u oolaysa kow haddii halgankii aad ka quusatay aragtidaadiina gaabatay waxaa kula gudboonad inaad geelaaga iska raaxatid arigaaga iska raaxatid iska ganacsatid iska aamustid haddaad doonto dibadaha aad ku badbaadid laakiin ma ahayn inaad weli aad noqotid xidido waraabiya gumaysiga madoobe Itoobiya marka ma jirto jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen oo ka qayb galaysa doorasho BB iyo EPRDF leeda walaalayaal taxanaha la socda ummadda Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen waxa la gudboon in ay halgankeedii saxda ahaa halgankeedii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen dib ugu soo celiso xubnahaas ahaan jira jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen waxa shacabka Soomaali galbeed Soomaalida ogaadeen halganka taageersan aan leeyahay wiilasha ama dhalinyarada maanta shahaadooyinka soo qaadanaya ogaada nin walbaba inuu dantiisii u cararay ودنيس أو عربي أو ربعي يروم شارع إنه تقاطع إنه حلبان نقطه أنت بدل وحيعان نقطة سومالي ده ما رأيتي دولة ده إنه حلبان نما الله عرض كيف بعدنا إلا مشار $5 دولار بشي لقاته سداهم بمرك الله عرض مرك هداي واحد داي جرتين إنه مشار هذا سلام يعني واحد شيء يا حمناس هداي جرتين إنه عرران إنه أنت سنة ترن نقطان مشار كهلان وحتى واحد جرتين نفته هذا واحد جرتين وياه نفتها واحد جرتين وواحد خلطها أو جرن إنه واحد مهم أو جراه لما مديال إن هاد بروسيس صح هالجنات كم أهاتي إن هاد هري وش هذا سيد نفته رياش وش هذا إن هاد كعام مستد ما دام عرفت ذا وقابته واحد أحيان متشرة ولا ليال سو نقد وناسن فبلان كلي وأنا أحمد الله أحمد سعاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.